faraxsannahay in kaydka qaranku. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Barnaamijkeena maanta waxaan ku eegi doonaa tartanka shidaalka Soomaaliya ee shirkadaha ugu jira iyo sidoo kale halista ku gadaaman mustaqbalka. Bal aynu dib u yara milicsano ee taariikhda sahanka shidaalka Soomaaliya oo ah mid soo bilaabatay xilligii gumeystaha uu joogay dhulkeena ayaa waxaa jiray dhulbaarayaal Talyaani iyo Mareykan ah waxa ay somadeeyeen astaamaha shidaalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay kontameeyadii. Shirkadaha laga leeyahay Talyaaniga iyo Mareykanka ayaa ahaa kuwii bilaabay in ay baaritaan ku sameeyaan shidaalka Soomaaliya. Shirkadii Eni ee loo yaqiinay markeedii hore Agiib iyo shirkadda Sinclair ayay ahaayeen kuwii baaritaanka ku sameeyay dhulka Soomaalida markii ugu horeysay. Waxaa xigay baaritaano kale oo ay sameeyeen shirkadaha kale ah ConocoPhillips, Shell, Amoco, Total iyo Texaco markii ay meesha ka baxday dowladda dhexe ee Soomaaliya 1991 waxaa joogsaday howlihii saxminta shidaalka Soomaaliya. Haddaba shidaalka ku keedsan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 110 bilyan oo fuusto. Sidoo kalena xeebaha Soomaaliya waxaa dhex yaala shidaal ka badan intaas oo aan weli la qiyaasin intuu la ogyahay, taasi oo Soomaalida marna u ah filasho wanaagsan marna musiibo ku ah. Haddaba waxa ay ku xiran tahay sida loo maamuli doono hantida ka soo xaroota kheyraadkaas. 30 sano kadib dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxaa dib u soo noolaaday hankii ay Soomaaliya ku doonaysay inay ka mid noqoto wadamada dhoofiya shidaalka, balse su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay ma la joogaa xilligii Soomaaliya ay soo saaran lahayd kheyraadkeeda. Khasaaraha iyo faa'iidooyinka ku gadaaman soo saarista shidaalka Soomaaliya. Khasaaraha iyo faa'iidooyinka ku gadaaman soo saarista shidaalka Soomaaliya. Shaki kuma jiro soo saarista shidaalka Soomaaliya inuu khasaarihiisu wato. Khasaaraha la filan karo waxaa ka mid ah in musuqmaasuqu kordho, inay meesha ka baxdo nidaamka dimuqraadiyadda Soomaaliya, furinta colaado sokeeye. kaliya ma ahan in loo fahmo haddii dal uu soo saarto kheyraadkiisa dabiiciga ah sida shidaal inay ku noqon doonto musiibo haddii si fiican loo maamulo lagana dhowro musuqmaasuq, waxisdamarin, tuuganimo, laaluush qaadasho. Dakhliga ka soo xaroon doona dhoofinta shidaalka Soomaaliya waa suurtagal inay soo saarto faa'iido badan, taas oo dalka ku hagta wadada barwaaqada, sidoo kalena ay wax badan ka beddesho nolosha bulshada Soomaaliyeed. yaa ka faa'iideysan doona haddii shidaalka Soomaaliya la soo saaro. Haddii ay dhacdo in Soomaaliya laga helo kheyraad dabiici ah sida shidaal ama uranium kadibna dibadda loo soo saaro, waxay ila tahay in kheyraadkaasi uu afka u dhigan doono laba qofood ama laba dhinac oo kaliya. Qodobka ama dhinaca koowaad oo ah siyaasiyiinta Soomaalida iyo shirkadaha shidaalka ee reer galbeedka. Si kastaba soo saarista shidaalka Soomaaliya laba wada mid bay u jihayn kartaa, mid gaarsiisa musiibo iyo dib u dhac, iyo mid gaarsiin karta barwaaqo iyo horumar. Haddaba tala soo jeedin si xal looga gaaro arrintaasi. In dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u eegis iyo dib u habeynba ku samayso mugdiga ka dhanka sharciga ah ee ku aadan sida loo qaybsan karo kheyraadka Soomaaliya. yay tahay cidda xaqa u leh inay heshiis la gasho shirkadaha shidaalka. Sidoo kale yaa looga fadhiyaa fulinta heshiiskaas. Qodobka labaad, in la sameeyo daraasaad ku saabsan Botswana oo ah dal lagu naanayso mucjisada Afrika, sidii ay uga baxsadeen dabinka musiibada ama ku tiirsanaanta dhoofinta kheyraadka dabiiciga ah, iyo sidii ay u maamuleen dhaqaalihii kaga soo xarooday dhoofinta kheyraadkaas. In lagu dhaqmo xigmadii ahayd intaadan falin ka fiirso, lana sameeyo qiimeyn ku aadan sida mustaqbalka wax noqon karaan ama ka hor soo saarista shidaalka Soomaaliya inta aadan guurin ayaa sahan la dirsaday. In la dhiso lana xoojiyo hay'ad ka madax bannaan hay'adaha kale oo la dagaalanta ka hortagta lana socoto musuqmaasuqa. In la xoojiyo hay'adaha canshuur ururinta si dakhliga dowladda uu u noqdo mid ka soo xarooda canshuurta dadweynaha, balse uusan noqon mid isku haleeya kuna tiirsan kaliya dhoofinta kheyraadka dabiiciga ah. In dowladda federaalka Soomaaliya ay furto dood cilmiyeedyo ku saabsan shidaalka Soomaaliya, taas oo ay ka qaybgalayaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. In dowladda federaalka Soomaaliya ay abuurto haykal dhaqaale oo isku dhafan, balse aysan isku haleyn oo kaliya dakhliga ka soo xaroon doona dhoofinta shidaalka.
tixraaca qodobkan aan ka diyaariyey Michel Rose, The Political Economy and Natural Resources Course, Politicals, Volume 51, 297-322, Heritage Institute of Policy Studies 2014, Oil in Somalia, Adding Fuel to the Fire, Policy Briefing Issues. intaas ayaan kusoo koobaya mawduuceena. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.